بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كسو دواده برنامجكي قصة iyo qosol iyo toddobaad kan Soomaalidu waxay misaqabdhaa yahay waxa ku buraan bisin waxa laga bilaabayna baraka male haye markaas barnaamijka bisin ma ku bilaabaynaa salaantii xaq ahayd daawadayaasha inta kadib waxaan ugu soo dhaweynaynaa si gacmo furan ugu soo dhaweynaynaa barnaamijka toddobaadkan ee qisa iyo qosol oo aad u xiiso badnaan doona sheekada koobaad وهاجي أفكار أد بدوس أمهات سنتهاي أنت عن شركة كوبات باللابين داودياشا سيدان عادي بوحسوسين شركات كوربا حن حسوسين إن وحي فريمة أما كنت أما هيانا شيء كوينة سيف ضد يجوا معناها عن دب مضان إن ينوسوا جود بيان حوان نذا أما حوان نذا يدا أو هالك كم وضع هدي نمبر هان لاهيد يا أي إيميل هان لاهيد يا أي فيسبوك هان لاهيد انتبه aadna waan u salaameynaa waxaan aad ugu mahadcelinaynaa daawadayaal fara badan oo runtii barnaamij walba oo toddobaad walba ka qayb qaata aan sii deynayno naguna dhiirigeliya in barnaamijka aan sii wadno oo aan macnaha sii horumarino aad baan daawadayaashaas uga mahadcelinaynaa intaa markii aan ka gudbo sheekooyinka maanta aan hayno ama aan maanta duubayna aad bay u badan yihiin laakiin barnaamijkan ugu horeeya sheekooyinka maanta aan hayno waxaan ku bilaabaynaa haddii ilaahay idmo talo celin waxaa jirtay toddobaadkii hore sheeko aan sii daynay oo laynoo soo gudbiyey sheekadaasi oo ku saabsanayd dhacdo runtii xanuun badan oo ka dhacday qoys Soomaaliya dhexdood ka dhacday gaar ahaan wiil iyo gabadh isu mehersanaa balse aan is aqoonin isna arag in dhexdooda uu shaydaan ka faa'iideystay oo nin kale reerkii uu u dhoontay marka sheekadaas oo runtii dad badan qulubtooda wax badan ka bedeshay ama aad u dareenkooda u kicisay waxaa jira dad kooban oo tala celin ka soo maadaama aynu niri daawadayaashan u deynayna bal wixii garta in talada ay ka soo celiyeen macnaha garta marka waxaan soo qaadan doonaa haddii alla idmo laba daawade oo aanu marayna midna inuu xaggaaga jiro midna xaggayga jiro labada daawade waxay tala ka bixiyeen sida ay u arkaan in gartaas ay ku xalismi karto ama ay ku wanaagsan tahay waxaan soo qabanayaa marka sheekada ugu horeysa maanta ahna gartaas taladii laga soo bixiyey waxaa taladan ka bixisay oo ka soo dhiibatay gabadh aan aad u salaamaya aadna qaali noogu ah barnaamijkan aad ugu taxan oo la yiraahdo Asma Sugaal oo ku sugan magaalada Hargeysa laakiin reer Burca ama gobolka Togdheer ka soo jeeda Asma Sugaal aad baan halkan uga salaameynaa waxay ku bilowday assalaamu calaykum barnaamijka qisa iyo qosol aad ayaan ugu xidhnahay una xiiseeyaa waa barnaamij wax badan aan ka faa'iiday nafsad ahaan habeen kasta oo aan daawadana anoo faraxsan ayaan seexdaa oo qoslaya bay tiri laakiin bay tiri caawa waa habeenkii macnaha ay daawatay sheekadaasi laakiin bay tiri caawa way ka duwan tahay maxaa yeelay sheekada ugu dambaysa ee codka ah waa qiso iga yaabisay marna iga nixisay sababtoo ah gabadh ayaa ku dulman meesha aan waxba galabsan oo markii hore ayadoo xulan karta gayaankeed dabar loogu xidhay bay tiri qof aanay u lahayn aqoon mid inkaar qabaana ka dhex faa'iidaystay ama ka dhex toosay haddii bay tiri ay dhacdo qisadan haddii bay tiri ay dhacday qisadani oo ay jirto oo ay dhab tahay waxaan kula talin lahaa wiilka in uu reerkiisa aqbalo oo uu kaxaysto xaaskiisa iyo ilmaha yar haddiiba gabadhu aysan gelin wax khalada oo ay tahay bay tiri gabadh sharaf iyo karaamo leh laakiin masiiba heshay dabcan ilmaha yarna sida culimaduba sheegtay bay tiri dadiyyaasha barnaamijkuna ka dhawaajiyeen ciddii ay u mehersanayd ayuunbaa iska labay tiri ilmahaas marka waxaan kula talin lahaa bay tiri inuu wiilkaasi hadal la-aan uu aqbalo reerkiisa gabadhiisa iyo macnaha ilmaha yarba uu sidaa kula wareego aad iyo aad bay u mahadsan tahay aad baan u salaamayna Asma Sugaal sheekada koobaad ee dhankayga jirta iyaduna waxay ka falcelinaysaa isla sheekadaas waxaan inala wanaagay Shuraym oo gaalkacyo jooga wuxuu yiri jawaabta sheekada gabadhii ninka martida ah loo xariyay horta gabadha ninka ay u doonaneen iyo wiilkeeda guuraha ku dhashay diiniya ninkay ku mehersanayd baa wiil kale oo uu dhaqan karaa reerkiisa labada reerna ballantii ay ku ballameen waa inay sidoodii u oofiyaan
iyaga oo sharafta iyo dhaqanka qurxoon ee Soomaalida raacaya صح sababta wiilku eed ma leh gabadhuna sidoo kale waa ceeb ka saleen oo eed ma leh ileen waalidkeed baa mukulaal madow habeen u xariyay ninka hawsha bi'iyey oo guuraha ku baxay 3 jeer waa dambiile kow marti buu ahaa oo marti sharaf bay lahayd iyo maamuuskii kamuna soo bixin 2 markii reerka uu soo martiyey golaha raggu uu tago bay ahayd inuu aado raggu golo fadhiistaa martida inuu golaha aaday ahay ta saddexaad oo dambaysu dambiga ku lahaa markii gabadha loo xareeyey iyadana kama uusan odhanin anigu ninkaad moodaysa ma ihi waayo waa qofka keli ah oo wax xallin karo ee wax og gabadhu wax ma oga odaygu wax ma oga waalidku wax ma oga gabadhii isbartay wax ma oga waa ninka keli ah oo wax xallin kara oo wax og ma oonan dhihin ninkaad moodaysa ma ihi ninkaagi ma ihi marti baan ahay shaqana kuma leeyahay arrintan shaqana kuma leeyahay saddexdaa arrimoodba dembi buu ku leeyahay ninkaas sidaa darteed waa in la raadiyaa ninkaas 2 qodobna lagu xukumaa 1.50 ama 1.50 halaad waa 150 halaad adu 1.50 halaad iyo soo qoray inuu 150 ka wado inuu ka wado 1 iyo badh waa adu 1.50 buu soo qoray 1.50 halaad oo reerkii gabadha dhalay la siiyo maadaama uu gabar sharafteeda ku ciyaaray waa ninkii baa lagu xukumayaa 2 gabadh uu dhalay ama la dhalatay in uu siiyaa ninkii gabadhu u mehersanayd waa sida aan ku bogsiin lahaa dhammaan cid kasta oo cudur qaaday sida labada reer wiilkii gabadhii iyo ilmihii yaraa intaba sida lagu caafimaad lahaa waa inuu gabadh xaala bixiyo oo la dhalatay isaga ama uu isagu dhalay keel 150 halaadna bixiyo 50 halaad bixiyo taas waa sida aan garta ku goyn lahaa buu aad iyo aad buu mahadsan yahay Shuraym oo gaalkacyo jooga wuxuu yiri Shuraym from gaalkacyo mahadsanidin qarji qod aad baan u salaameynaa Shuraym hay meel badan buu ka eegay aad baan u mahad celinaynaa afkaadha waxaan marka ku sii soconaynaa inta waxaan kaga gudbaynaa sheekadii falcelinta ama gartii adkayd daawadayaashu talada ay ka soo bixiyeen waxaan u galaynaa marka barnaamijkeennii maanta ee qisii qosol okay waxaa lagu bilaabay sheekadan assalaamu calaykum baada qari jiqood magacaygu waa Ismaaciil Ibraahim sheekadan horta waxay ka duwan tahay maya kama duwana waa sheeko caadi ah assalaamu calaykum buu yiri baada qari jiqood magacaygu waa Ismaaciil Ibraahim oo jooga dalka India dalka India India oo barnaamijkeena hadda u dambeeyayna sheekooyin baa laga soo sheekooyin baa gabadh baa sheekooyin nooga soo dirtay gabadhii ducaysatay maalin maalmaha ka mid ah ayaa nin iyo xaaskiisa oo isqaba buu yiri ayaa isku dhibtooday buu macnaha isku rafaaday gabadhu ama xaasku gabadha ama xaaska ayaa ninkeeda subax walba waxay u karin jirtay buu yiri ilaa 2 xabo oo suus maxaa u taqaanaa halbeeg waxa lagu diyaariyo lagu cabiro miya saasaan u maleeyay shirimirida wax la eegay waa shirimir la eegay dad badan ma shirimir ma garanayna shirimir wala garan ma malayn اللي لفتي غير ما شرمري لو ويدين معي لو ويديا غلط انك هسه مساسا وحوري الا لبا حبه او سوس او عنجيره صبحي دنبه او معناها سوس او عنجيره يعني لبا كوب او عنجيره يو غنا جرتي waxa uu adigu laba suus uu yiri marka waa laba jaqafo canjeeraan u maray subaxii dambe gabadhii ayaa ninkeeda ku tiri nin yahow aniga ifur ifur sababtoo ah aniga subax walba ma dubi karo 2 xabo oo suus oo canjeera
ninkii ayaa yaabay haye wuxuuna ku yidhi xaaskaygayay bal sug atashane go-aan baan soo qaadanayaa haye isug buuri haye ha degdegine ninkii markuu guriga ka soo tegey ayuu asxaabtiisa u yimid buuri uuna ku yidhi asxaabay gabadhii ama xaaskii aan wada joognay ayaa igu kacsan maalmahan haye waxayna taagan tahay ifur haye aniga haye saan kugulama noolaan kare kugulama noolaan kare haa haye macnaha kuma wada noolaan karee ifur bay taagan tahay ko nin marka asxaabtiisa ka mid a ayaa ku yidhi saaxiib orodoo iska tag haye shaqadana iska aad haye annagaad nagu ogtahay gabadhe xalinayna xalinayna macnaha haye haye haa haye markaad shaqada ka soo baxdana gabadha ka wardan reerkaaga iska imo reerkaaga iska imo oo reer ka wardan haye macnaha meelaha ha ulmin oo meelaha ha ka wareegini ha reerkaaga caadi wata toos u tag toos u tag una kumgeysana haa haye yuu ku yidhi buuri haye sababta saad garanayso saan sheekada ka fahmay ninku uu u warramay macnaha wixii jiray gabadha waxay ifur u leedahay iyo reason ka dambeeyay ha in macnaha ay laba xabo suuse ha ay u dubto ha labadii xaba ay karahsatay ha marka ay leedahay niyow saan kugulama joogi kare iga iska fur subax walba laba xabo suuso canjeeraa ma dubi kare ha macnaha saasay i leedahay buu macnaha ku yidhi waan gartay Waa sida- halkaana helayay adoo marka wuxuu ku yidhi ninkii saaxiibkii ah niyow kac iska bax aniga xalka gaadhay gaadhaye haye saaxiibkii ayaa baxay buu yidhi kolkuu ninkii tegey saa ugu ku yidhi saaxiibkii wuu baxay haye wuxuu u tegey gabadhii ay ninka wada joogeen haye ama xaaskiisii ahayd wuxuuna gargaraacay albaabkii guriga ko albaabkii yuu qarqar ka siiyey haye gabadhii ayaa ka furtay haye kolkaasuu ku yidhi dumaashi aaway laba suscune haye laba suscune aawe aaway haye waxay tiri wuu shaqo tegey haye wuxuu ku yidhi fariin iga gaarsii haye markii uu yimaado markuu yimaado dumaashi muxuu soo wataa ee, haye dumaashi markuu laba suscune yimaado fariin iga gaarsii buu yidhi maxaana ku dhiya maxaad ku odhani waxa la wuxuu ku odhan baad garan lahay soo ma waxaadna ku tidhaahdaa xaajigaagu markuu yimaado waxaad saaka kuu yimid saddex suscune ko haay saddex suscune yaa ku yidhi yaa saaka kuu yimid haye wuxuuna ku dhahay waxaad iigu timaadaa guriga afar suscune hadda way ku qasbantahay in iskala joogtay ee haye waxaynu shir ku leenahay guriga shan suscune hadda way ku qasbantahay iga tegi mandhiye markaasay yaabtay buu yidhi haye oo ay tidhi bal orod waa yahay anaa u sheegaye shirka baa aadin idhaha haa si usoo baran isuus badan sawir kuwa haa kale markaas ayay inay gabadhii dib u fikirtay ayay tidhi buu yidhi ninkaaga ayaabad laba suus uga cararaysay ka waran haweenka saddex suus afar suus ilaa iyo shan suus dubaye kadeed kale haa waxayna tidhi buu yidhi ninkayga ilaahay igama qaado ninkayga xalkeedii waa gaadhay ninkaas already xaalkeedu waa gaadhay ninkayga ilaahay igama qaaday tidhi aamiin sidaasuu macnaha yuu ninkiina xalkii yuu ku gaadhay sheekada xigta dhankayga taala wuxuu yihi assalaamu calaykum waa xasan cabdi axmed oo jooga america sax waxaan jeclaaday inaan idinla wadaaga sheeko gaaban waxayna u dhacday sidan buu yidhi haye maalin ayaa waxaa dhacday buuri suuqa kawaanka ee magaalada muqdisho inay laba gabdhood ama laba haween oo dumar ah oo reer xamar iyo reer waqooyi kale ah ay usoo kala adeeg doontaan hilib kawaanka hilib baa lagu gadaa moogtay hilibkii usoo adeeg doontaan mid waa reer waqooyi midna waa koonfureed tii reer xamarka ahayd baa waxay goosatay buuri tumin hilib ah tuman tumin waa in yan sax waa wax ugu yar miya haa sax ruucu ka yiri ruucu ka sari haa sax tumin hilib ayay goosatay halka ay tii reer waqooyiga ahayd goosatay buuri kiilooyin hilib ah midii reer waqooyiga ahayd waxay ku tiri ee naa walaal dima bisad baad siin waxa bisad xafad idin joogta ee tii reer xamarkeed baa iyaduna sidii wax looga sugay waxay tiri bay tiri oo adiga matacsi baa kuu dalo adiga hilibkina ratay laa yacaayi aniga
aad baan u salaameynaa adiga waa tacsiibaa kuu taallaydi wallaahi waa tana garle sababtoo ah tana wax badan bay iibsatay sida iyadoo tacsiib u taalo sida iyadoo tacsiib u taallay sida iyadoo bisada tuuray tuna sida iyadoo bisada tuuraysa weligaa dadkaaga lagamana horeeyo lagamana dambeeyo lagamana dambeeyo waa dhexdhexaad baa la noqdaa waa hagaag sheekada gacanteeda ku jirta waa sheeko inagu cusub qaabka loo soo gudbiyey laakiin waan fasaxaynaa صح waan hee fasaxayna fasaxaynaa Haye. maadaama hadda ka horeyna sheekooyinkeena ku badnayn haye sheekadan waa sheeko jacayla ko waa sheeko hee jacayla jacayla haye waxaa lagu bilaabay assalaamu calaykum وعليكم السلام waan idin salaamay akhyaarta فقط bacda salaan waxaan jeclahay in aan idinla wadaago sheekooyin laakiin waxaan ka cabsanayaa in aad sii dayn weydaan ko waan sii daynay haa oo aad ila jeceshihiin gabadha aan jeclahay anunay gabadha fagaadha jeceliyo ninkan hal baa loo yiri soo daad gabadha haye marka gabadha aan jeclahay inaad ila jeceshihiin idinkuna yaa laga yaabaa marka sidaas darteed inaad naftaan sheekada soo dayn weydaan yaan ka yaabayaa buuri ninkan haye magacaygu waa cabdifataax ismaaciil ducaale ko cabdifataax wuxuu joogaa kenya saan ka fahmay haye inkastoo isagu uusan meeshu joogo inoo soo sheegin laakiin kenya joogaa haye sida aan ka arkay contactiga haye uu inoogu soo gudbiyey sheekadan haye wuxuu yidhi walaalayaalow waxaan jeclahay gabadh haye laakiin iyadu ma oga haye in aan jeclahay haye waxay jaanis leedahay toddobaadkii 2 maalmood haye waan salaamaa haye marka aan arko anigoo qoslaya buuhi haye oo faraxsan haye laakiin iyadu ma faraxdo haye imana fahantuuhi iyadu way dhacday haa haye mana faraxdo imana fahanto haye gabadhan toddobaadkiiba 2 maalmood bay ka leedahay fasax toddobaadkii waa sabtidii xataa waa jimcihii khamiistii haa haye yay fasax leedahay ama ay jaanis leedahay haye labadaa maalmood cabdifatax wuu arkaa haye malaajid iyo waxay iskaga hor yimaadaan garan maaye oo meesheeda ugu tagaa ama meeshada ugu taga wuu salaamaa haye isagoo qoslaya oo faraxsan ha oo Dhoolla qof caddaynaya. dhoolla caddaynaya haye qof meel looga badan yahay yuu salaamaa gabadha haye laakiin iyadu salaantan cabdifataax iyo dhoolla caddaynta cabdifataax uma aragto dhow dhow ma dhacsana waa dhagaheeda ma dhaafsana haye ila taliya buuri haye oo ii sheega sida ugu habboon ee aan gabadhan ugu sheego xaalkayga haye iyo in xitaa aan gaadhsiiyey warbaahinta qarjiqood waxaan si gaar u salaamayaa master nuur iyo master avocado haye salaamallah waxaan ka codsanayaa in xaaladayda aad qurxisaan idinkoon isdhibaynin anigana itixgelinaya haye avocado tabdhe ninkaa taladaad siin lahayd bal soo daa tayda ha dambaysay dee horta ninkan horta talada daawadayaashaan u dhigaynaa ko inteeda badan inteeda badan Haye. daawadayaashaan u dhigaynaa haye waxayna noqotay sheeko hadda qayb cusub oo kusoo biirtay barnaamijka awal wixii kugu yaab badnaa iyo wixii kugu qosol badnaa bayd waa moogtahay saas hadda waa qayb ila tali ah sax marka insha allah barnaamijka inaan barnaamijka ka yar dhex saarno sax oon ila talida gaar uga dhigno sax yaan isku dayi doonaa haddii alla isku dayi yidhi. doonaa insha allah sax talada aan ninkan siinayo waxay tahay Mhm. horta dadku cilmu qayb ma aha Mhm. ruuxuna qalbigaa kuma dhex jiro Mhm. waxa adigu dareensan tahayna haddaadan ruuxa u sheegin isagu ma dareemayo isagu ma dareemayo Mhm. xilliga aad u sheegta iyada Mhm. culays badan baa isaga ka tegaya Mhm. laga yaabo in culayskii haye jacaylkaana la qaybsato Mhm. oo iyada lafteeda xataa haddayna aqbalin Mhm. ka fikir iyo welwel iyo celcelin iyo wax Mhm. ku haysato Mhm. iyadan xataa af ahaan uga sheegin haddii ay qalbi ahaan iyada uu culays ku fuulo Mhm. nus baa isaga ka fududaani Mhm. marka waxaan kula talin lahaa ninkaas Mhm. inuu gabadha sida uu wax isagu u rabo ugu sheego oo nadiif ah Mhm. uu ugu sheego hadday wax ka dhab yihiin Mhm. jawaabteeda iyo xogteedana uu nala soo wadaago Mhm. inuu ku guuleysan doonaan rajeynaya Mhm. hore u socon mar kale okay aad baad u mahadsan tahay cabdifataax ismaaciil waxaan ku odhan lahaa saaxiib adduunyadu maalinba meel bay maraysaa ha maanta waxaan u malayn waxaan joognaa
2018 lama joogo xilli lamaanuhu ama qofku uu dareenkiisa la gaban karo inkasta oo iyadoo aan waxba xumaan la sameeynin haddana qofku inuu dareenkiisa uu qofka uu dareenku ka galay ama kalgacal ka galay inuu u soo bandhigo waa wax aad isaga fudud sababtoo ah xilliyo waxaa jirtay jacaylka lagu gudbin jiray waraaqo sidan oo kale ah oo gacanta lagu qoray xilli waxaa jirtay email lagu gudbin jiray fariin oo qofka emailkiisa intaad raadsato email la isugu diri jiray fariinta oo aan wax kale la awoodin xilli waxaa jirtay macnaha siyaabo kala duwan ee macnaha loo xidhiidhi jiray laakiin maanta waa xilliyada ugu fududaa ee la isheli karo ama qofku uu qofka kale dareenkiisa la wadaagi karo sababtoo aaladna waa la isticmaalaa casri ah oo digital ah siyaabo kale oo badanna waa la isu arki karaa waxaan odhan lahaa marka talada aad siiso untu la midoo xilli uu qofku intuu qof jeclaado qofkii jacaylka uu qabay uu ka aamuso ama uu ka xishoodo ama uu ka cabsado waa la soo dhaafay waxaa la joogaa xilli macnaha qofka aad si nadiifa ugu sheegi karto dareenkaaga marka waxaan ku gubaabin lahaa in dareenkiisa uu si caadi ah ula wadaaga gabadhaas sababtoo waa gabadh Soomaaliyeed saan filayo gabadh Soomaaliyeed hadday tahayna inay isfahmaan yaan rajaynaynaa sababta isaguna wiil Soomaaliyeed waa gabadh Soomaaliyeed marka sabab loo kala war hadayna caqabad jirin way iska dhacdaa macnaha xilligan baa la jooga casriga ah haddana way dhacdaa xilliye macnaha caqabad ay ku aad gabadhaas ku gaarsiiso ay adkaanayso sababtoo gabadhu haddii aysan ay tahay gabadh guriga baan ka soo bixin gurigaasna laga yaabo way dhacdaa Soomaalida weli way ku badan tahay hadda gurigaasna waxaa laga yaabaa gabadha in la ilaaliyo oo loo ogolayn inay baxdo oo maxaa laga yaabaa gurigeeda aan la iman karin dad badan oo noocaas dhaqanka leh way jiraan Soomaaliya marka haddii aysan caqabad adag ayna jirin oo gabadhaas deesaan ka fahmay way isgaari karaan sababta uu salaamaa ama dukaan ku salaamo ama dariiqa ku salaamo ama gurigooda baa ku booqdo laakiin meel salaantiisa ay ka gaari karto way isu gaaraan oo uu salaamaa marka maadaama uu salaamo waxaan odhan lahaa in uu gabadhaas xanuunka haya ee jacaylka la wadaago oo uusan waxba kala cabsanin waxaa kaloo odhan lahaa wixii sheekeeda hayso ee aan macnaha barnaamijka ka hor imanaynin in aanu sii deynin annagu haddii ilaahay idmo aad iyo mid kalena waan siinayaa tala ahaan qofka noocaas oo kale markaad uga baqayso ama aad isku cusub tihiin eed xog cusub la wadaagayso koolka oo codka ah iyo face to face oo la ishor fadhiisto waxaa ka fudud qoraalka هذا هو hawsha aad chatting ku shaqeynayso sheekada xigtaan soconaya صحيح khayr badan baan rajaynayaa aniga ku dhaaf خير بان رجينا ان شاء الله وفاء عبد النوريب joogta سودو فاضل ايه waxay tiri فاضل waxaan u eegaa dadka member bay ka tahay barnaamijka dadka ugu badan barnaamijka aad baan u salaameynaa uguna faraxsanahay inay sheekooyin mar walba nala wadaagto waxay tiri waxaan jeclaystay inaan la wadaago sheeko yaraantayda aniga igu dhacday iyada lafteeda ku dhacday haye yara waxaan joogay bay tiri magaalo bad leh bad way dheertay moogta waa saas halkan ay ka bilaabataa dhow madiin agteeda yarkiisa sheeday ku socota haye marka meelaha bay mid uun kaga qumaysho haye waxay tiri magaalo bad leh ayay joogay haye galab galbaha ka mid ah waxaa ku dhantay bay tiri badda William haye ani ku qaraqmay صح waxaa la igu cabsiin jiray bay tiri ama la igu bajin jiray hadda adoo kaligaa aado waad ku dhimanaysaa anna waxaan aad u jeclaa bay tiri sharaabka yaraantayda sida calowga gabadha sokorta xuli jirta haye waxay tiri sharaabkan aad u jeclaay waxaan idhi bay tiri aanba dhinte aakhirada sharaab horta ma laga helaa aad ayaad u mahadsantihiin walaa jiqo aad baan ugu mahad celinaynaa gabadhaas okay sheekada ugu dambaysa dhankayga toddobaadkan sheekadan waa sheeko coda waxaa inoo soo gudbiyey adeer axmed sucaad ugaas maxamed oo ku sugan magaalada Brisbane ee waddanka Australia ugaasku sheekada isaga inoo sharixi doona sax sababta wuxuu hadduu cod yahay sharaxaad ma laha sharaxaad ma laha aan daawadayaasha siisayna marka balnaga iyo daawadayaashuba
waxaynu ku nasanaynaa ama macnaha aan dhageysanaynaa sheekada uu inoo hayo toddobaadkan adeer axmed sucaad ugaas maxamed soo dhow ugaas. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد سلامت حقا كدب وأنيقا أو أحمد سعاد وقاس محمد بريسبن أستراليا waxaan maantana idiin soo diray sheeko gaaban ama qiso muhiim ah ee tabdhaha. waxaa walaalo ahaa 3 nin oo saddexduba waxay lahaayeen xaasas iyo caruur. maalin maalmaha ka mid ah ayay waxay saddexdii walaalaha ahaa go'aansadeen in ay caruurtooda iyo xaasaskooda oo deegaan ka fog ku noolaa ay jiscin iyo raashin iyo wixii ay awoodaan ay u dirsadaan, balse waxay haysteen hal riti oo hayin ahaa. kadib ritigii ayaa waxay ku rareen wax alla wixii ay awoodeen si ay caruurtooda iyo xaasaskooda u gaadhsiiyaan. waxaa xusid mudan caruurtooda waxaa ku jiray xataa abaydin yaryara. kadib waxaa 3 nin ee wada dhalatay waxaa ka mid ahaa mid indha iyo dhagala ah. sidaa awgeed waxaa hogaankii ritiga qabsaday kii walaalkood ahaa ee indhaha iyo dhagaha la'aa. waa mas'alo yaab leh. wuu la dhaqaaqay ritigii kii indhaha la'aa iyo dhagaha. waa yaab. kadib ninkii hogaanka hayay intii uusan gaadhin caruurtii iyo xaasaskii deegaankii ay ku noolaayeen ayaa waxa uu soo gaadhay gebi weyn ama hoomaaq duleesho oo ballaadhan oo uusan nin indha iyo dhagaala dhaafi karin. sidaa awgeed ayay ku baraarugeen labadii fayoobaa ee indhaha iyo dhagaha la'aa. waa cajiib. haddaba waxaynu isweydiinaynaa su'aalahan ee hoos ku xusan. 1. nimankani walaalkood way yaqaaneene maxay hogaanka ritiga ugu dhiibeen? waa su'aal. su-aasha labaadna waxay tahay maxaa la gudboon oo siday uga badbaadinayaan walaalkood ee kasii laadlaada gebiga si uusan isaga iyo ritiguba ugu dhicin? waxaan idin xusuusin labadan qodob ee soo socda. hadday u dhawaaqaan waa dhagala yahay, waa yaab. sidoo kale hadday u baaqi lahaayeen wuu indhala yahay, kaba daran. kadib haddii aan su-aasha koowaad aan isku dayo jawaabteeda, anigu waxaan ka idhi waxaa caan ah oo la ogaaday in nafta bini'aadamka ihi ay aada u jeceshahay raaxada. sidaa awgeed way ogaayeen labada walaalahoodii walaalkood sida uu yahay oo iyakaa xilkaas saaraa. sidaa awgeed way ka wahsadeen oo naftooda oo raaxo jecel ee raaxada caanka ku ah ayay u hoggaansameen. ee iyana tabdhaha, bahdiina qari juqood iyo dhammaan daawadayaasha oo dhan ee sharafta badan. tan ugu dambaysa, su-aasha labaad jawaabteeda waxaan u dhaaf xalkeeda dhammaan inta ay khusayso oo ay ka mid yihiin daawadayaasha iyo bahda qari juqood. mahadsanin dhammaantiin bahdiina qari juqood. rajo wacan. waa axmed sucaad ugaas, Brisbane, Australia, 11 bishii 3 sanadii 2018. mahadsanid. aad buu ugaas ku mahadsan yahay. aad baan salaamayna ugu mahadsan. jawaabteeda xardina daawadayaasha daawadayaasha wadayna mise daawadayaasha inaga badano iyagaan deynayna sheekadan horta waa sheeko haddaan ku darsan lahayna nin dhagala oo indhala ficil mooyaan si kale oo wax loogu sheego. maya waxaa ku muhiimsan waxaa weeye ninkan wuu dhagalayahay wuuna indhalayahay, laakiin mahmaha Soomaaliyeed baa waxay ahayd waalana walaalkii yaa umiyar qaba. sababtoo 2 nin buu ninkan la dhashay, cidla muusan joogin, ciidanna muusan waayin. in la gureeyay ahayd isaga waxay ahayd in gurada la saaro, laakiin maysan ahayn in loo dhiibo 2 riti hoggaankood oo isku xidhiidhsan in loo dhiibo maysan ahayn gar iyo gardarro toona. marka
cidda khaldan walaalkoodna dayacay hantidii iyo gaadiidkiina dayacay waxaa weeye nimankii indhaha labadan indhaha qabta. sheekada dhankayga ugu dambeysa barnaamijkan maanta wuxuu yidhi waan idin salaamay nuur iyo afakaadha iyo dhammaan bahda barnaamijkan qiso iyo qosol waad ku mahadsantihiin sida aad noogu soo daadihisaan sheekooyinkan qosolka leh ee aad noo soo gudbisaan. adigaa mudan. magacaygu waa cabdirasaaq shire Toronto Canada. aad baan u salaamayna cabdirasaaq shire. waxaan idinla wadaagayaa sheeko yar oo markii la ii sheegay aad iiga qoslisay. nin baa xaaskiisa xanuunsatay. ninka horta military lagu sii daayay kuma ma qum la yidhi maya ninkii intii dugsiga la geeyey iskuulka anuga military oo dhulka leen cabdirasaaq waa harda cabdirasaaq waa mise waxaad farqadlo la farqadlo inuu dugsiga dilaanka sida yuhuudii garaacay yidhi ninku cabdirasaaq wuxuu yidhi sheekada markii laga sheegay qoslisay dabcan waa looga sheekeeyey sheekada nin baa xaaskiisa xanuunsatay marka wuxuu ugu yeedhay buu yidhi wadaad si uu qur-aan u saaro gabadha ka xanuunsatay wadaadkii markii uu qur-aankii ku akhriyey gabadhii soo socotaan ninkuu cabbaan ku akhriyey waa gabadhii waxaa ka dhacqayliyey jin buu yidhi leh naga daaya qur-aanka waa ka baxaynaayo wadaadkii kamuna daynina wuu kusii waday jinkii wuxuu yidhi wuu sii qayliyey wuxuu yidhi waan baxayaa laakiin hal shuruud baan ku baxayaa wadaadkii baa weydiiyey maxay tahay shuruuddu kulaha gabadha waan ka baxayaa laakiin ninka ayaan gelayaa gabadha ninkeeda ninka gabadha qabay ninkii meeshu soo fadhiyaa buu yidhi gabadha wax ka hahay wadaadkii wuxuu damcay buu yidhi inuu qur-aanka kusii wado ninkii baa yidhi sheekh jooji qur-aanka kulaha intuu annaga na geli lahaa meeshiisa nagee jiray qur-aanka naginta aada iyo aada buu u mahadsan yahay ninka la yidhaahdo cabdirasaaq Toronto jooga aad baan u salaamayna aad buu ugu mahadsan yahay wuxuu yidhi ninka dee moogtahay wuu cabsaday shaqoldaa buu yidhi meesha igee jira buu yidhi laakiin ninkaasi waxbana muna galeen jinkaasi waxay ahayd inuu fasax yidhaha meesha doona ha gale sababtoo ah gabadh masaakiin oo xaaskiisiina ugu dhimaya baalkani inuu yidhahdo durbaalka aniga waa laga bixinaya gabadha ka saar inuu yidhaha laakiin inuu lafihiisa u baqo kor in meesha la keeno ma haysho ma ahayn hagaag daawadayaal waxaan soo gaadhnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena qisa iyo qosol ee toddobaadkan barnaamijka sidii caadiga ahayd waxaa idiin soo jeedinayay ama idinla socodsiinaya aniga waa nuur maxamed iyo weliba saaxiibkay afakaadha maxamed axmed dhanka kaamaradu waa saaxiibkeen axmed yuusuf sheekh cabdi waxaan u mahad celinaynaa guud ahaan daawadayaashii nala wadaagay sheekooyinka kala duwan ee toddobaadkan noogana soo gudbiyey meelaha kala duwan ama magaalooyinka kala duwan ee daafaha caalamka wixii sheeka aad noo haysaan ee qisa ama qosola waxaad noogu soo gudbin kartaan ciwaanadeena oo aad ka aragtaan shaashada dhabarkeena ka muuqata intaan barnaamijka mid lamid ah toddobaadka dambe haddii rabbi qadaro ku kulmi doono ama maalmaha soo socda haddii rabbi qadaro ku kulmi doono dhammaantayo isku duwan waa bahda qari juqada waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabaadiina wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu